tu dia tadi ke kau? Tak, aku nak bagi kat ustaz. Nanti senang dia tengok. Dia tengok apa yang berlaku semua benda. Ni kau tadi apa? Kau pergi dekat muuqaalkan waxaynu kasoo qaadanay page Facebook ah kaas oo laga leeyahay dalka Malaysia waxaana uu abuuray muran aad iyo aad u ballaaran markii muuqaalkan uu soo baxay si gaar ahna waxa uu muran ballaaran ka dhaliyay dalka Malaysia oo ah meesha ay dhacdadani ka dhacdadani ama sheekadani waxa ay ku bilaabantay raggan ayaa waxaa dhacday guriga ay degan yihiin ayaa alaabta taala ayaa kaligeed iska dhaqdhaqaaqda iyada oo aanay cidi taaban markaas kadib waxa ay maqleen codad naxdin geliya laakiin horta aynu in yar isla soo eegno kau ustaz ngah, kau ustaz. Allahu akbar. inankii yaraa sidaad u arkayseen waxa lagu soo tuuray alaabta guriga taalay mid ka mid ah sidaas oo kale ninkii muuqaalkan duubayay ee kaamirada hayay isagana waa lagu soo tuuray kadib waxa ay waceen nin sheekh ah si uu ugu yimaado waxayna bilaabeen duco iyo salaad Hello ustaz. Assalamualaikum. Ustaz kat mana ustaz? Ustaz tolong datanglah ustaz. Hantu ni dah gila dah dia. Apa kadib dhacdooyinkan isxiga markii ay dhaceen ninkii muuqaalkan duubaya kaamirada hayay waxa uu ku arkay wiilkii yaraa ee walaalkiis ahaa wajigiisa wax la yaab geliyay laakiin intaa kadib wixii dhacay ayaa aad iyo aad u cabsi badnaa Pergi mandi sekarang. Pasal ni. Amsha! La ilaha illallah. kadib waxa isbedelay muuqaalkii iyo codkii wiilkii yaraa waana uu u naxay walaalkiis qaabkan waxa uu sameynayo kadib waa uu dhaqaaqay waxa uuna tagay xagga iyo suuliga ama xamaamka ama musqusha saad u taqaanidba kadib walaalkood waa ay ka daba tageen labada nin bal waxa dhacaya waxayna ka maqleen meeshii oo gale cod la yaab leh laakiin qaab aan horey loo arag ayayba ugu tageen meesha oo ay aad iyo aad ugu naxeen inagu muuqaalkan waynu soo koobaynaayo wiilkii dhacdooyin badan ayaa uu sameeyay waxaana mid ka mid ah ayaa la dadaalay walaaladii kadib waxa ay sheegeen wiilkan in uu wixii ka dhacay gurigan ama jikii soo weeraray uu isaga galay Ustaz tolonglah datang ustaz. Ustaz tolonglah datang. Ni adik saya pergi dia ni. bal ka waran dhacdadan ku dhacday faamilkan iyo wiilkan yar gaar ahaan iyo waxaan guriga soo weeraray Majimba dhacdadan aad iyo aadka u cabsida iyo argagaxa iyo la yaab ka badan waxa ay ku bilaamatay ninkan guriga kaligiis ayaa uu joogaa kadib qof ayaa si live ah ula sheekaysanayay mobilkiisa ama waxa uu ku isticmaalayay kadib isagoo sheekadii wata ayaa waxaa dhacay in caadi loo soo weeraro waynuna isla arki doonaa muuqaalka waxaana la sheegaa kuwa ugu xaqiiqada dhow ee ay dadka waxyaabaha la yaabka iyo qariibka iyo cabsida leh ku dhacay ee la arkay inuu ka mid yahay muuqaalkan kadib ninkii markii waxa isku dhaceen meesha waa uu iskaga cararay waynuna isla arki doonaa muuqaalka sidaad wada arkaysay ninkii oo sheekadiis ka wata ayaa dharka dabadiisa yaala la dhaqaajiyay iyadoo aan cidi taaban kadib waxaa la furay kabadhka dharka si la yaab leh kadib waa uu booday oo waa u naxay waxa uuna baadhay bal waxan sababay laakiin intaa kadib waxa uu dareemay in ay isaga khatar kusoo fool leedahay meeshana si dhaqso ah ayaa uu iskaga cararay
dhacdadan naxdinta badan kadib markii ay ku dhacday ninkani waxa uu sheegay inuu gurigan iskaga guuray sababta oo ah waxa uu ka aaminay gurigan inuu degan yahay jin. bal ka waran adiga muuqaalkan daawanaya haddii ay tani oo kale ku dhacdo adoo kaliga guri degan ma samayn lahayd oo guriga ma iskaga guuri lahayd mise waad hagaajisan lahayd?